waxaa maanta toos loo furay suuqa xoolaha ee degmada Gurceel oo dhawaan xariga ka jaray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor. Maamulka degmada Gurceel ayaa ku guuleystay in la xalliyo tabasho ay qabeen qaar ka mid ah dadka suuqa ka iibsada xoolaha laguna qanciyo tabashadooda si loogu guuro suuqan cusub. Suuqan oo si casri ah loo dhisay laguna dhisay isku tashi bulsho iyo kaalmo ay baxsheen qaar ka mid ah saaxiibada taageera Soomaaliya ayaa ah suuqa labaad ee ugu weyn Soomaaliya waxaana soo dhaweeyay dadka xoolaha iibsada iyo kuwa u iibkeena. Maamulka degmada Gurceel oo ay weheliyaan laamaha amniga degmada Gurceel ayaa maanta kormeer indhiindhayn ah ku tagay suuqa oo maanta shaqo bilaabay. Gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka suuqa xoolaha ayaa ka warbaahisay halka laga gaaray khilaafka ka jiray suuqan xoolaha. waxaan soo dhaweynaynaa warkaas ay sheegeen gudoomiye ku-xigeenka iyo afhayeenka Nuur Jaamac Maxamuud ay sheegeen anoo aadan Axmed Xayre ah gudoomiye ah warkoodaas soo dhaweynaya warkana waa sidii u fureen oo sheegeen ayuu muhiimadu sidaas ay tahay suuqa qof walba oo ganacsi waa ka soo qayb gali kara waan u hambalyeynaa maamulkuna waa ugu wareejiyay wixii kale oo hadda ka dhiman oo yaryarna waa lagu dhameystiri doonaa intaas soo dhaweynayna warkuna intaas ku beeskaraysan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. annagoo ah saakayto meeshan waxaan sugu nimid degmada Gurceel maamulada kala duwan odayaasha maamulka suuqa dhammaan waxaan maanta sabtiga ku cadeynaynaa meeshan suuqa Gurceel inuu furan yahay ummadda Soomaaliyeed saas ha ugu warhaydo waana soo dhaweynaynaa wabillahi tawfiiq. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Gurceel Anas Cabdi Macalin ayaa sheegay in suuqan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dadka Gurceel waxa uuna ugu baaqay in si wanaagsan looga wada faa'iideysto bulshada reer Gurceel waxaan leenahay marka walaalayaal aan ka wada faa'iideysano qayb walba iyo dhinac walba oo loo baahan yahay xoolaha sida markii la suuq keeno xoolaha meeshii lagu gadi lahay meeshii markii la gado la geey lahay iyo meeshii laga rari lahay intaba waa u dhameystiran tahay marka wax ka dhiman haba yaraatee suuqan ma jiraan. waxaan rajaynaynaa inaan ka wada faa'iideysano bulshada dhan ay ka wada faa'iideysato cid walbana inay halkan xoolahooda keensadaan cid walba u furan yahay waa ganacsi xor ah. waxaan leenahay wada shaqayn wacan dhammaan bulshada reer Gurceelna waxaan u rajaynaynaa in ay si wanaagsan ay uga faa'iideystaan mashruucan quruxda badan. runtii dhulkan aad arkaysaan bulshadu ayagaa gatay wax lagu qasbay ma ahan ayagaa lacagtooda kala baxay hay-aduna dhismaha ay iska leedahay dhismaha ay u dhistay marka faa'iidadaas waxaan uga mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala ka sokowna waxaan uga mahad celinaynaa bulshada reer Gurceel oo arrintan isku kaashatay aad u mahadsan.